col maaha nabadna maaha markuu bad ka dhaxeeyo marka waxay tiri waxaan tagayaa Sweden iyo Sweden maxay ku doosaa waxaan tagayaa abla asxaabta iyo walaalahay baan u tagayaa okay baan ka iyo ayaan ka yiri seba sheekadu marka saahayd dabadeedna waa kan YouTube-ka lagu soo tuuray inantaada arag YouTube-ka dhaxar warheeda jaalayaal aad baan idin salaamay marka soo joogtaan soo dhawaada ayaan leeyahay haddii Allah awood leh inoo qadaro waxaan halkan uga hadli doonaa barnaamijkeennii hadalaynta baraha bulshada iyo waliba waxyaabihii ugu saameynta badnaa saacadii la soo dhaafay iyo waliba saacadahan hadda aan ku guda jirno waxa hadalaynta baraha bulshada aad iyo aad u haysatay ama aad wada aragteen nin dhalinyaro ah oo YouTuber ah oo caan ah oo la yiraahdo Maxamed Buskut iyo xaaskiisa oo lagu dhagan yahay ninka isaga ah run ahaantii arrinkaasi waa arrin aad iyo aad looga xumaada ku dhacay arrin la yaab leh ayaa ku dhacay sidiisaas oo kale wiil dhalinyaro ah waxaa ku dhacay isagana YouTuber ah in gabar uu guursaday kadib uu YouTube la soo fariistay maalmo kadib marka YouTube-kiisa ka soo muuqatay ama ay muuqaalo badan la soo sameysay ay dhacday in 8 cunug ayada ay dhashay la wado iyo macallinkeedii oo doodaya ay soo fariisteen oo la keenay waxa la keenay cadaymo aad u badan waalidiintii iyo waliba halaag aad u badan ayaa meesha ka dhacay tanna tii bay daba socotaa waa dhacdatii oo kale ah oo Maxamed Buskut sida yani muxuu ahaayay Maxamed Buskut ugu tilmaama anu ma aqoon sidaas oo malihi Maxamed Buskut laakiin yani waxa lagu yiri gabar hore ay kala tageen oo uu qabay gabadha hore uu qabay waa u diidi jiray in bara bulsho ay ka soo muuqato iska dhaaf inay la soo fariisato oo si toos ah ay muuqaal ula sameysay xitaa isagoo hadlaya oo kamarada u furan tahay agteeda uu ka hadlo agteeda haddii ka hadasho kamarada ayuu damin jiray kadib wuxuu dhihi jiray aamus waxbaan duubayaa meesha hadalka ayaan laga maqlin ninka sidaas ahaa marwadii ama gabadhii sidaasi ahayd way kala tageen oo calafkooda ayaa halkaasi ku dhammaaday kadib wuu furay gabar ayay kadib isguursadeen dabeedna waxaa dhacay gabadhii in tii hore ay ka bedelnaato oo YouTube-ka ay la soo fariisato oo TikTok live ay la soo gasho oo kadibna hawlahaasi haddii Allah ku idmaayo ee halkaasi sidoo jira uga daadihiyaan laakiin bil kadib guurkoodii waxaa dhacay in la keenay nin Faransiis ah oo ilmo u dhashay oo qabay oo 10 sano ugu yaraan qabay afkeedana ay ka qiranayso arrimihii haddii la sii wadwaday waxay caddaatay arrinka isaga run inuu yahay waxaa hadashay hooyadeed waxaa hadlay sheekh meheriyey waxaa hadashay markhaatidii waxaa la keenay sawiraantii cadaymihii ayaa la keenay haddayaa la waalahayaa marka waa yahay qofka la waalahaya ee maskax lagaga ciyaaraya waa qofna gabadhan iyadoo la qabo nin qabo markay nin kale u tagaysay nin kale ay mehersanayso ama ay guursanayso waalidiinteeda iyadoo ma garac bay xagga laga soo qaaday maxaa khaldan dadka miyayna amaanayna waalayaan macnaha hawshaasi waa hawl inaba haba yaraatee aadan fahmayn laakiin waxay ka mid tahay waalida iyo waliba indha cadayska social media gabadhii hadalka idinkuma sii dheeranayo waxaan idinla wadaagayaa hooyadeed oo hadlaysa ehelkeedii iyo waliba sheekhii meheriyey meeshii lagu meheriyey iyadii oo haddana hadlayso cadaynayso warkii haddaba ninka kan gabadha aad ka sheegaya inay hooyadiis tahay ama mehersan wuxuu sheegaya iyadoo la xijirayaan wadankii laga soo kaxayey lixkida shagala ma jirtee waa naawin bahayd markii magaalo ka timiday oo ninkayga soo mehersatay oo disidiga Jabuuti lagu soo meheriyey oo caruus loo sameeyey marka Jabuuti baa lagu meheriyey shariico islaam iyo qaadiyo muslimiin ah meheriyey oo hadee Jabuuti waa wadan muslima marka ninka kan dareen islaam iyo dariiq islaam baa guurkiisu ahaa labadaba waa yahay waa hooyadii gabadha dhashay oo waxay leedahay gabadhani iyadoo weyn ayay magaalada gashay ama magaalada aaday kadibna ninkaasi ayaa lagu meheriyey Jabuuti ayuu meherkeeda ka dhacay qaadi dhan ayaana meheriyey masaajid ayaa laga meheriyey hooyadii ayaa leh oo cadaynta sheegaysa oo hadlaysa haye dadda waxay horta ii sheegtay inay ninkiis afdhaafeen ninkayga ay cul yihiin bay ii sheegtay maad garatay haba ii sheegtay horta nin naag col maaha nabadna maaha markuu bad ka dhaxeeyo marka waxay tiri waxaan tagayaa Sweden
saa waxaan tagayaa abla asxaabtaya iyo walaalahay baan u tagayaa okay baan ka iyo ayaan ka yidhi siba sheekadu marka saa ahayd dabadeedna waa kan youtube-ka lagu soo tuuray inantaada arag youtube-ka dhaxar waxaa la yidhi il waxay hayso ama il waxay aragto ilaala ka dhan waxaad isla wada arkaysaan waa marag madoonto oo waxaad idin wada muuqda weeyaan waxa meesha yaalla gabadhan hooyad baa hadlaysaa waxay leedahay waxay igu tiri anigu ninka hore aan isqabnay hooyo waa isku dhacsannahay saas darteed xoogaa madax xanuun iyo buuq baan dareemayaa waxaan aadayaa Sweden kadibna xaggaasaan iskaga soo nasanayaa maxaad doonaysaa markaan irina waxay igu tiri waa soo nasanayaa waqtina waa soo qaadanayaa oo ninkan iyo buuqiisa xoogaa isku dhacsannahay waxaan kaloo meesha aadayaa hablo asxaabada ah oo xagga jooga oo saaxiibanahay iyo walaalahay iyada qaar la dhashay oo xagga jira baan aadayaa xaggaana soo waxeenaya maalmo kadibna waaba iyadii oo youtube fadhida oo nin garab fadhida oo xaaskaygii uu leeyahay uu haysta marka waxaa ila yaab ila ah oo ilaa iyo hadda aan maskaxdii ka dhaadhacaynin ninkani gabadha markuu guursanayo hadduuba wuxuu ku guursanaya xarig xalaal yahay oo guurka xalaasha saxda uu yahay waalidiinteedii maxaa war la-aan dhigay yaa meheriyey yaa bixiyey isaga hadalkiisa waa maqli doonaa oo wuxuu dhihi doonaa ama sida uu leeyahay adeera ayaa meheriyey ayuu leeyahay adeeruhu ha meheriyaan waa run oo adeerka yacni markii aabbaha la waayo oo walaalkeed la waayo oo aqrab kale la waayo adeerkay u guuraysaa walaayada laakiin hooyadii dhashay ee macaan oo degan ayadoo khiyaar mala xoole ma weydiinaa miya waalid ma aha miya waxba lama socon karta miya se iyadoo nin ku ogaadaan nin kale oola tegi maskaxda la iskaga dheelayaa waa maskaxda la iskaga ciyaaro oo caadi ah dawaniga arkaydeena kan loofka isku ah adiga waxay ku ahayd gabar ninkeedii ay isku yar xanaaqeen Sweden qaraabo salaam qashadaad maskaxda soo masina walaalahay baan u tagayaa beegata isla dhacdadaas horena ee aan la wadaagnin waxay ka dhacday dalka Sweden dhalinyaradani youtuberada ah ee inta badan jooga Sweden ama Yurubta waxay ila tahay anigu inay qabsadaan kaliya gabdho baadi ah oo yacni muxuu ahaa noloshu ku ciriiri tahay ama cararaya ama nin ka soo goostay ama family problem haysta oo si yar waalan bay ka yar faa'iidaystaan oo qabsadaan saasaan u maleeyey waayo ma dhihi karna dadkan dad caadi ma dhihi karna bal waayahay haddana isagii laftirkiisii iyo weliba xaasna ma dhihi karna gabadhii la joogtay muxuu ahaay la sheegayey baa hadalkeeda idin maqashiinayna waayo xaas ma oran karna dadka haddii waalidiinta war raalli ka ahayna maysan ogeynba waa un qof la iska qafaasho la iska haysto Quand est-ce que tu vas devenir musulman pour moi? Parce que tu n'étais jamais musulman. Quand est-ce que tu vas devenir musulman? waxaa ku idhi goormaa muslin ii noqon doontaa weligaa muslin ma ahayn isaga jawaabtiisa dhegaysta wuxuu isagu oran doono gabadhani iyaduna mar allaale markay ku caddaatay hawsha waxaana wax laga shaqeeyey markay ku caddaatay oo ay ogaatay hawshu in la is haysto oo runtii bannaanka ay imaatay waxay hawsha u bedeshayba ninkani wuu iqabay waa run laakiin nin gaal ebu ah oo waxaan ka wiri soo islaam maadaama aad gabar islaam oo muslimada qabto adigana diinta soo gal wuu iga diiday oo maxaa marka horeba nin gaal ah kuu geenaya oo urayo gaal ah oo kala diin baa tihiin maxaa kuu geenaya soo islaam waa maxay khiyaarkiisu qofka diintana ku gala ugana baxay diintu waa khiyaar waa iimaan waa rumayn weeye haddii qofka say khiyaar buu uusan lahayn ma afduubashi iyo soo gal buu kusoo geli ma awood baa u leedahay maxaa kuu geenayay marka hore wey hormaad muslim naqanaysaa muslim ma aadan aheene nina muslim ahayn ma rabe bal asagana dhegeysta jawaabtiisa wuxuu idhi markaad soo noqotid aa ii timaadid ayaa noqonayaa muslim weliba wuxuu yidhi waa codadka usoo duubayo iyo hadallada isdhaafsanayaan hadda maxaa buskud iyo isaga gabadhaasi ay nala wadaagayaan waa intay Sweden tagtay oo isku dhacoodii kadib ah buu nala wadaagayaa oo iyadii baa cod u dubaysa waxay leedahay waxaan rabaa inaad islaamto oo luuqada faransiiska ku hadlaysaa ama islaamaysaa oo diinta soo qabsanaysaa wuxuu yidhi isagana ilaa waa nin islaantiisii ka tagtay mar alla markaa soo laabato ii imaato baan islaamayaa haye bal qaybta kalena aragno waa ismehersanaan iyo maxamed sidii baan isku mehersanay silii baa xalaal ku nahay adeeradii ayaana bixiyey sheekhiya nagu meheray masaajidka sidii ay aniga maxamed isku qabnaa oo xalaal isku qabnaa oo allana og yahay
waxay noqotay ninkan ajahanibka in muslim buu haa oo muslim buu kugu qabay oo waraaqado ayaa soo saarteen maanta xalay waraaqado ayaa arkay raggan youtube laha oo le waraaqadahaasi waa waraaqadihii uu xalaasha uu ku qabay gabadha muslimnimo ayuu ugu qabay maaha mana garanaya waxay yihiin ina inagu soo samaysateen artay allahu yaclam ma aqaano laakiin waxaan nii sheegayaa inuu ninkaasi aniga muslim igu qabin uu waraaqadahaasi waxay ahayn garanayn laakiin waxaan tusayaa codkiisa wuxuu habeeniya maalinba u leeyahay hawshu waa caddaatay soomaalidana waxay dhihi jireen ilaahay ceeb horteed hana dilo ceeb horteed intaad adduunka ku ceeboobi lahayd ilaahay hana dilo oo de intaan ceeboobi lahay ilaahay adduunkaba hay dhaafiyo ceebta sidaasaa looga carar jiray waagi hore laakiin hadda ceebtu waxay noqotay 2 afmaroojis keliya ceeb maxay kaa dhib waa 2 afmaroojis waayo dhaqan xumadii iyo wax kasta waan aragnay wax kasta wax noo dhiman mar wax kastana waa indhiinaydi maxallina marka adduun waxaan joognaa iska sii tagay oo gabagaba oo soo aakhira muuqaalka inoo sheer garay wixii aragtidaada iyo fikradaada kala aadanna qaybta commentiga nagu reebado mahadsan